صلاتي عيدا يا رمضان تقتلوا سبيا يا رمضان صلاتي يا رمضان سلام سلام يا رمضان سوني كالضمن يا رمضان صونق يا رمضان صلاتي يا رمضان سلام سلام يا رمضان سوني كالضمن يا رمضان صونق يا رمضان بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة يا مقالدة خضرة كيتشن وحسعدة عيدي عنتوين كذي سو دوينتي عيدة سيلبريشن كي عيدة رمضان وناكسن عيدكم مبارك رب عيدينا وبالرب بإذن الله. مركا حالته مسا شالي بأهايد حلقوا فيديو قيدي سو قاريا وما ننت عيدة كهوريسا. marka asxaabtaydii reer YouTube waxaan isla baranaynaa sida loo sameeyo xalaawatul laws, xalwata hilaal, xalwa xaaji ciise dadkii garanaya kuwa aan garanayn waa kuwii gadaal dhashay ama meelaha kale ka yimi, laakiin xalwa xaaji ciise is macruuf. tan xalwa xaaji khadra la yiraahdaa. markaas soo dhawaada, waa kaas halkaa waxaa ku jira warangadii iyo biyihii 10 koob 2 kiilo oo xalwada. 2 kiilo oo xalwada waxaa laga sameeyaa 2 koob oo waranga, 2 koob oo biyo ah la isku walaaqay. digsigana waxaa ku shubanaysaa 8 bakeeri oo biyo ah iyo 2 kiilo oo nut ah oo sonkora. waad garateen somaha. marka waa taas xalwada waxay u baahan tahay maalin aad tahay full of energy, aad xoog badan haysato maasha Allah, ama dhalinyaro ama dad kale oo iyaguna xoogan kula joogaan because walaaq bay u baahan tahay. so anigu waxaan ku soo dabaal bartay ayaamo horan sameeyay kiilo baan sameeyay. so kiiloguna wuu fudud yahay, laakiin maanta 2 kiilo baan sameynayay. 2 kiilo waa mashruuc kasii badana dawaaba warkeeda. so haddana marka aanad u diyaarsanayn shooladana way ku xidhan tahay si hard time ku siinayso. so shoolada waxoogaa hard time shalay siisay. so warangadii baan halkaa kusoo qooshay. waranga waxa weeyaan cornflour, daqiiqda xalwada laga sameeyo ama sabur ayaa luqadaha la badiyo baa la yiri. maxay ahayd Soomaaliga lahashadihiisa dabaka daqiiq bur waxay rabtaba ha noqotee waa alaabtii laga sameynaya xalwada. 2 kiilo oo sonkor baan halkaa ku shubtay. fandaalkaygiina waa ka kalarka waxaan ka soo sameeyay yellow iyo casaan baan isku daray si orange noqdaan. in yarna la dhaafi maayo, inta yar gunta ku dhigtay waa in laga soo fujiyo. waa taas. marka cabaar saanaata dabka waxay keentaa inay boodboodkeeduna waa dhaanjar kale wuu ku gubayaa. mudbaha, shoolada, derbiga adduunkaas oo dhan wuxuu ka dhigayaa mas. soo miiskii yaraa ee mudbaha marada yar ee looga abaan saartay because derbiga waa marmar hadduu ku dulduulo waan ka fujin karaa, laakiin halkan waxa weeyaan qorigeedu waa qori yar sensitive ah, wixii ku dhagaba uu hadhowto ma ku sameeyo. soo tuwaaladaasaan goglaysayna iiga gubanin kabarka banjkiisa. intaasina waxa weeyaan tricks aan idin siinayo markaad xalwada badan sameynaysan. hooyooyinka madbaxa 2 dabool baan saaray. digsiga daboolkiisii baa wuxuu u baahday inuu meel dheer ku igaga jiray meesha stoorka weelasha ku gurano. so ana waan yar degdegayo maan haynin waqti aan ku soo fago. kaas baan saar labadaasaan saar. runta la isu sheegaya maogta marmar halkan waxyaabo feega baa laga sameeyaayo waxaa la iska dhigaa maasha Allah, laakiin runtu ma fanta mise waa furuq. marmar daboolka waayaysa, marmar dabada boodboodkeedu markuu ku dhibana waa inaad caqli kale la timaada. labada dabool baan midba dhinac ka saaray. haye ka soo gudub. hadda markay saa isugu dhigto markay ugu adag tahay gacantii ka gubaysaa. laakiin maanta waxa goor hore iiga soo noqday shaqada ciyaalkii 2 kamida. kuwii baaba caqliga keenayo galaafka ma aragtay marka ofinka wax laga soo saarayo lagu soo saaro kaasay asma gashatay
kan baan ku waxaynaynaa bay tiri ku walaaqaynaa maasha allah weyna anfacday taladaasi haddana saliidii baan kusoo duduucayaa marka waxaan ku sameynayaa haaf saliida iyo haaf subaga because maanta subaga iga yaraa laakiin waxaan jeclahay xalwada ee tusar inaan subag ku sameeyo so bakeerigaas labadii baan ku sameeyey oo subag ah hadhowna waan ka dhurayaa waxaasaan ku darayaa waa hayl iyo choice marka haylka iyo choiceka anaa shiitaa waan soo iibsadaa isagoo caadiga markuu yahay originaalka waan saloolaa waan shiidaa marka ka suuqa laga soo iibiyo iyo ka khadra xawaash way kala khatarsan yihiin wala isu faanaya adduunkiiba faan buu noqday laakiin dee waa run wallaahi wax ka udgoon ma laha wakaas hawsha halkaasay maraysaa xalwadiisaa si usoo boodboodaysaa waxay ahayd inuu 2 saacadood 2 kiilo ku bislaado laakiin maanta wuu igaga batay 2 saacadood 2 saacadood iyo 25 minutes because shooladaas loo ahayd markii dambe waxaan sameeyay waan bedelay 2 bileed baan shiday 2 bileed markaan shiday bay waxoogay fast ii noqotay so in case ay kugu dhacdo shoolada laydhka ahi haddaan ogaaday gaasta abaa ka tafsan waa kaas marka ciid wanaagsan hooyooyinkii daalkii aabayaashii caruurta timaha wiilasha laga soo jaraa ciida gabdhaha xinaa loo soo mariyaa timaha loo soo hagaajiyaa soo labadii cisho ugu hawsha badneyd weeye soo hooyooyinka ciyaalka u yaryar yihiinoo xalwada isku samaynina dee dalbada oo gabdha sameeyaa jira anu ma iibiyo xalwada to be honest just anigu baska enjoy garayantaan sameeyo inaan youtube-kayga soo dhigto meelahaygan facebook-kayga laakiin gabdha iibiyaba magaalada ka buuxa ka dalbada dee ilaahba nafta hayee maxaan ku sheegaa insha allahu tacaala hadda waxaan bilaabayaa inaan kulba wareejiyo laakiin waa inaan ka guuro qaybtan oo aan u guuro qaybtii kale ee 2 bileed aan shidayay aragtaan xoog yani xawaaro kuma socoto maanta dhan lama dul taagnaan karo xalwad samayso xalwad waa kaas soo guuray hadda way yar kululaanaysaa golofkiiskii aan idin lahaa u naafacayna waa kaa laakiin markay halkan oo kale marayso aada uma yani ma soo boodbood badan ma laha boodboodku waa inta hore marka hadda waxaan ka dhurayaa saliidii iyo subagii because way soo tuftaa markay soo tufta micnaheedu waa inay diyaar tahay sababka inay bislaatay ama ku soo dhowdahay bisayl waa calaamadaha lagu garto ayaay koobkan gibay noqonaysaa alaabtan ka soo guray hadda qurux bay soo noqotay samaha iminkan cabdalla ii yimi cabdalla guray bidixda ku walaaqayaa ma aragtaa bidixdiisa xoog wey marka waa kaas maasha allah wallaahi markay soo noqdeen shaqay ku maqnaayeen saan u farxayo kala bilay farxay alxamdulilah ilaah bay soo celiyay kaalay aad ila weerartaane marka alxamdulilah iyaga ii kala tuuray dee waa ka bogatiin soo maaha videogan ugu talagalay inuu 10 daqiiqo noqdo fideoyadeeda hore 7 daqiiqo 8 daqiiqo baan ka dhigi jiray laakiin deekan waa xalaabatul laws ma waqti badan lagu bixiyo oo gabdhaha qaar ay bartaan because anigu waxaan ka bartay gabadh la yiraahdo qamar binti amiir bas waxaan ku jeclay hadalka si fiican bay yani qiyaasta itustaa qiyaasteedii positive oo ii shaqayso wallahi ma sha Allah soo idinka asxaabtayda ciid wanaagsan ilaahay naga aqbalo haddana lowski baan ku soo daray lowskaas waxa weeyaan roasted already isagoo la soo saloolay oo diyaar ahaa in yaroo milix xabul lahaa laakiin milixdii waan ka nadiifiyey maan maydhin laakiin waxaan waan ka qalajiyey dee waata way ka soo booday ma aragtaan how beautiful marka saas shayniga u noqoto waa number 1 marka saas fartaada u galiso haddii waxba soo raaci waayaan ma sha Allah ishcala inay bisishahay digsigeedina waa ka ma aragtaan how clean u yahay way ka soo go'day
ويدك هذا شو نكسن لايك شير كومنت وحكستا أنا إلى ونا شغلتي إلى متخيلة سيدو نقضي إلى باء لكن الحمد لله أنا هايستي إنرجي إيسف كروبي 2-3 minutes أنا أقول دورينيا. السلام عليكم عيد